maalin ka hor ayay ahayd markii dowladda Iiraan ay sheegtay inay bartilmaameysatay saldhigyo Maraykanku uu ku leeyahay gudaha dalka Ciraaq. weeraradaas oo ay sheegtay inay u argudaysay dilkii Maraykanku u geystay Generaal Qasem Soleimani. hase yeeshee saacado kadib waxaa hadlay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo sheegay inaanay jirin wax khasaare ah oo Washington ka soo gaaray weerarada ay Iiraan ku qaaday saldhigyadooda. madaxweyne Trump waxaa kale oo uu sheegay in khasaaraha uu aad u koobnaa, sababtuna ay tahay Maraykanka oo si wanaagsan uga sii baaraandegay weerar lagu soo qaado saldhigyadooda. sidoo kale militariga dalka Ciraaq ayaa sheegay inaanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay 22 gantaal oo Iiraan ku garaacday saldhigga Maraykanku uu ku leeyahay gudaha dalka Ciraaq. sawirro laga qaaday dayax gacmeed oo ay baahisay shirkadda Planet Labs ayaa muujinaya 5 goobood oo Iiraan bartilmaameysatay kuwaas oo u muuqday dhismayaal ku yaala saldhigga Al-Asad. David Chwala oo ah khabiir ka tirsan macadka Medboa Institute ayaa sheegay in meelaha Iiraan duqeysay ay u muuqdaan meelo aan waxba oolin. hase yeeshee Mark Milley oo ah taliyaha ciidamada Maraykanka waxa uu sheegay in Iiraan damacsanayd inay Maraykanku u geysato khasaare aad u ballaaran. Iiraan waxa ay damacsanayd inay geysato khasaaro aad u ballaaran oo waxa ay doonaysay inay burburiyaan baabuurta, diyaaradaha, hubka iyo ciidanka Maraykanka, ayuu yiri Mark Milley. inkastoo Iiraan maalmihii la soo dhaafay hanjabaado kala duwan ay u jeedinaysay Maraykanka, ayaa haddana waxaa muuqata inay wax dhibaato ah u geysan saldhigyada Maraykanka sida ay sheegtay xukuumadda Washington iyo militariga Ciraaq. haddaba Iiraan ma waxa ay si bareer ah uga baaqsatay inay khasaare u geysato Maraykanka? way iska caddahay in gantaaladii Iiraan aanay wax khasaare ah geysan. laba ka mid ah gantaaladaas lagu duqeeyay saldhigga Al-Asad ayaa ciidamada Ciraaq sheegeen inay ku dhaceen galbeedka magaalada oo ah meel aad uga fog halka ay joogaan ciidamada Maraykanka. militariga Ciraaq waxa ay sheegeen in gantaaladaasi aanay weli qarxin, iska badaa inay ku dul dhacaan bartilmaameedkoodii, taasoo laga dheehan karo inta uu leeyahay khasaaraha ka dhalan kara. saraakiil ka tirsan midowga Yurub iyo Maraykanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay aaminsan yihiin in Iiraan ay si bareer ah uga baaqsatay khasaaraha ka dhasha weerarka, ayna ka weecatay inay si toos ah u bartilmaameysato ciidanka iyo hubka Maraykanka. sababta Iiraan u sameysay arrintan ayay ku sheegeen inay doonaysay inay ka hortagto in xiisad ay faraha ka baxdo. sidoo kale Jake Cooper oo ah wariye ka tirsan telefishinka CNN ee dalka Maraykanka oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegay in Iiraan ay bartilmaameysatay goobo uusan wax khasaare ah ka soo gaari karin Maraykanka. haddii sida muuqata ay dhab tahay oo Iiraan aanay dhab ka ahayn inay khasaare u geysato Maraykanka, waxaa dadka darsa arrimaha gobolka ay aaminsan yihiin in xukuumadda Tehran ay doonaysay inay dejiso xiisadda, walow ay kala duwan yihiin hanjabaadihii ay Maraykanka u jeedisay Iiraan kadib dilkii Qasem Soleimani.